تعالى وبركاته. soo dhawaada asxaabta meel walba joogtaan. qof walba oo video waan daawanayo waxaa leeyahay soo dhawo fadlan. ma aragtay aad iyo aad videogan waad daawanaysaa sababtoo ah account-kaaga forex-ka ayaad rabtaa inaad koriso. waxaa laga yaabaa inay kugu jirto lacag aad u yar oo ilaa $100 ilaa $1000 u dhaxaysa. marka waxaa rabtaa inaad si tartiib ah u korisid. sababtaas la ajligeed ayaa videogan u daawanaysaa. marka maanta nasiib ayaa leedahay. marka videogan waa videogii aad soo raadisay aad u baahneed sidii aad u ogaan lahayd sida maaragtay account-kaaga forex-ka loo korin lahaa qaab aad iyo aad u fudud oo ma aragtay oo risk management ku saleysan. marka ugu horreyn marka isku day inaad subscribe aad channelka fadlan subscribe sar si aan ma aragtay video u galno. subscribe inaad marka hore saarto isku day. waxaan ku siinayaa fadlan muddo 5 second ah ayaan ku siinayaa markaa subscribe inaad ku saarto isku day. 1 2 3 4 5 mahadsanid. 5 second way dhamaatay. waxaan rajeynayaa inaad subscribe aad saaratay oo aad hadda kadib aad ka faa'iideysan doonto waxyaabaha aan soo bandhigi doono maaragtay siraha suuq forex ku saabsan. marka maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay sida loo koriyo account maaragtay forex ah. marka sheetkan ayaa maaragtay aan isticmaalaynaa. qofkii warqadan sheetka u baahan yani waxaa dhigi doonaa description-ka ayuu kala degi doonaa. waxaa laga rabaa trade-kaaga inuu ku saleysnaado account korintaada waa inay ku saleysnaataa qaabkan oo ah yani sheetkan aad diyaarshay aniga gacanteyda ku diyaarshay. marka sheetkan horta wuxuu ku saleysan yahay ama excel systemkan wuxuu ku saleysan yahay waxaan rabnaa inaan gaarno 60% account-ka inaan korino ayaa rabnaa. waa bisha dhan. marka bisha dhan waxaan doonaynaa inaan korino 60% lacagta account-ka ku jirta ayaa rabnaa inaan soo celino. waa total return ama ma aragtay inta laga rabo inaan soo celino waa 60% ama 60%. marka systemkan wuxuu leeyahay halkan waxaa gelinaysaa lacagta account-ka ku jirto tusaale balance-gaaga. waxaa laga yaabaa inaad haysto $100 iska dhaano $100 u yar lacagta maaragtay haysto ay ka soo qaad inaad $100 haysto right. so marka haddii aad fiirisid $100 marka meesha aan ka dhigtay waxaa ujeedaa inay isbedeleen wax walba oo maaragtay meeshaan xogtii inay isbedeshay. this means waxaa halkan hadda akhriso money in account. markii aad $100 dhigtay lacagteeda maalinta ugu horeysa waxaa ku darsantay $3 maxaa yeelay daily return ama aragtay maalintii waxaa rabaa inaan soo celiyo 3% account-kayga ayaa rabaa inaan soo celiyo maalin walba. marka 3% haddii loo fiirsho $100 waxay ka noqonaysaa $3. si kale calculator-ka ayaa isticmaalaynaa si aan u fududeeyo calculation-kaas. marka calculator-ka markaa soo qaadatid waxaa leedahay 3% oo ah 3 oo lagu dhuftay waxaa leedahay lacagta $100 ah oo loo qeybshay $100 ayaa leedahay. marka waxaa ku soo baxaysa $3. marka this means waxaa waaye haddii $100 aad haysato 3% of $100 aad haysato waxay noqonaysaa $3 ay noqonaysaa. marka $30 waxay ku soo baxday $30 maaragtay oo lagu dhuftay $1000 oo loo qeybiyay 100 waxaa soo baxayo 30 ayaa soo baxayso. this means waxaa waaye 3% haddii loo fiirsho $1000 waxay ka noqonaysaa $30 ay noqonaysaa. marka haddii aan hore u sii socono risk macnaha waxaan risk gelinaynaa $10 oo ka mid ah $1000 si aan $30 u sameeyo faa'iido ah u sameyno. markii la kala jarana labadan $30 oo laga jaray $10 waxay noqonaysaa $20. marka maalintii haddii waxaa laga rabaa inay suuqa ka raadsado $20 marka $1000 igu jirto account-kayga. run ahaantii arrin fudud waa arrintan qof walbana uu sameyn karaa oo maaragtay qofkii forex mustaqbalka leh uu gaari karaa. marka sidoo kale halkan waxaa ku qoran TB target. TB-gayga waxaa ka dhiganayaa 60 bib ayaan ka dhiganayaa. 60 bib sababta ugu dhig waxaa waaye
aad ay u fududahay, qof walbana wuu gaari karaa, ma ahan wax adag. 60 bib suuqa maalin kasta waa ka heli kartaa haddii aad isku taxallujiso. Marka 60 bib qof walba yacni suuqa waa ka heli karaa isleeyahay sida aaminsanahay. Stop loss-kaana waxaa ka dhiganaysaa 20 bib ayaa ka dhiganaysaa. Marka haddii 60 bib aad ka dhigto, lot size-kana waxaa waaye system-ka oo maaragtay na siinayo waa 0.05 oo ah yacni lot size-ka loogu talagalay in aad ku gasho account-ka ay ku jirto $1000. Marka 0.05 markuu yahay lot size-keena waxay la macno tahay yacni halkii wuxuu noogu fadhiyaa I think content city ama lahaa. Marka haddii aan xisaabino marka 60 bib haddii uu target-keena yahay, haddii aan faa'iidno meeqa faa'iideynaa, waxaa dhahdaa 60 bib oo lagu dhuftay leenahay 0.50 oo ah lotka 0.05 inta oo nagu fadhiyo khasaare ama faa'iido. Marka sida ujeed waxaa soo baxday sida saxda ah $30 ayaa soo baxday oo yacni ah oo faa'iido ah. Marka sida ujeedid waxaa waaye $30 ayaa halkaani ka soo baxday oo ah yacni arrin aad iyo aad u wanaagsan oo ma aragto qof walbana uu gaari karo. yacni 60 bib inaad suuqa ka hesho run ahaantii waa arrin aad iyo aad u sahlan, qof walbana uu sameyn karo. Marka lot size-ka ku galayo waxay noqonaysaa markii aan haysto $1000 waxaa laga rabaa inaan ku galo 0.05 ayaa laga rabaa inaan ku galo guud ahaan lot size-ka aan ku galayo trade-yada. Marka haddii maaragtay lot size-ka halkaas ugu baxno, horta sida caadiga ah waxaa trade gareynaa annaga 5 maalin ayaa suuqa forex la trade gareeyaa. Marka haddii $1000 account-ka kugu jirtay maalinta koowaad waxaa haystaa account-ka waxaa ku dhacday $1030. maalinta kale account-ka waxaa ku jirta $1060. account-ka maalinta saddexaad waxaa ku jirta $1090. maalinta afraad $1120. waxaa halkan ku jirto sidoo kale $1150. marka maalintaas waxaa faa'iido wiigaas dhan waxaa faa'iido $150. waxaa kaa khasaartay $50. haddii la kala jaro intana khasaare iyo faa'iido waxaa haystaa $100 nadiif ah wiigaas suuqa kala dhaqaaqday. sidoo kale inta bib maaragtay aad trade gareyso waa 300 bib. stop loss-ka waa 100 bib. 300 iyo 100 bib haddii la kala jarana waa 200 bib. lotka wiigaas dhan aad isticmaashana account-ka u isticmaashay ee $1000 kugu jirtana waa lot aad u yar. wiigaas dhan waxaa isticmaashay lot total ah 0.25 ayaa isticmaashay. wiiga kale kuu soo haray isla sidii oo kale account-ka 150 kale ku dhacday, 50 kale risi gelisay. haddana 100 ayaa haystaa oo maaragtay dollar nadiif ah. 300 bib maaragtay wiigaas kale qabatay. 100 bib khasaartay. 200 bib nadiif ah haysaa. wiiga kalena lotka isticmaashay waa 0.25. wiiga saddexaad sidoo kale $100 150 kale faa'iiday. $50 khasaartay. $100 nadiif ah account-kaaga ku dhacday. markii khasaare iyo faa'iido la kala jaro 300 bib qabatay. 100 bib khasaartay. 200 maaragtay nadiif ah haysaa. wiigaas kalena waxaa isticmaashay lot 0.25. wiiga ugu dambeeya oo ah bisha wiiga usbuuc ugu dambeeyana sidoo kale $150 faa'iiday. $50 khasaartay. $100 nadiif ah haysaa. 300 qabatay. 100 bib ka go'day oo maaragtay weysay. 200 nadiif ah suuqa kala tagtay. wiigaas afraad lotka isticmaashana wiigaas waa 0.25. waa arrin aad iyo aad u wanaagsan run ahaantii oo ah risk management aad iyo aad u fiican oo maaragtay mudan in lagu dhaqmo. fahamtay? marka adiga at the end of the month bisha marka dhamaato waxaa haystaa lacag dhan $1600. marka $1000 ku shubatay account-kii bisha dambena waxaa heshay $1600. account-ka waxaa kugu jirta $1600. marka $600 lacag badan waaye. total return-kaagana macnaha haddii la fiirshana waa 60% ama 60%.
losskaagana markii loo fiirsho in percentage marka loo qiimeeyana maaragtay waxaa weyse 20% net returnkaaga waa adiga 40% oo nadiif ay account korisay bishaas. inta bib aa qabato waa 1200, inta bib aa khasaarto waa 400 oo bib, inta bib ee nadiifka ahna waa 800. marka lot size-ka aa isticmaasho bishaas oo dhan haddii la isku darana waa 1 standard lot oo ah arrin aad u fiican. marka systemkan sidan waa sida ujeedid. annaga Soomaalidana waxaan naqaanaa in waxaan rabnaa isla maalintaas aan sameyno 100% return. waxaan rabnaa lacagta account-ka ku laba jibaarno isla maalinta gudaheeda ama saacado gudaheeda.